waxaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray mashruuca waqfiga ee deegaanka madaarista ijaara kaasoo qabanqaabadiisa muddo dheer soo socotay. mashruuca waqfiga oo qiyaas ahaan ay ku baxayso dhismihiisa 300 milyan ayaa loogu talagalay inuu daboolo baahida 8 madaraso oo ku taala deegaanka ijaara. daafurka mashruuca waqafka ayaa maanta waxaa xariga ka jaray xildhibaanka degmada ijaara oo ay wehelinayeen waxgaradka iyo culimada deegaanka Gaarisa. dhammaan xildhibaanka, culimada iyo marti sharaftii kale ee ka hadlay shirka jaraa'id ayaa ku baaqay in loo wada gurmado mashruuca khayriga. bismillaah, alxamdulillaah, sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kathiiran. ama bacd, ayuha alikhwa, walaalaha muslimiinta, waxaan u diraynaa risaalo mise barwed mise waraaq iyo ama fariin si lagu maarata hadalka loo dhahaba. waxay tahay fariintaas waqaf loo dhisahayo madaaris islaamiya oo ijaara, meesha gobolka ijaara la yidhaaho oo aada loo garanhayo oo Gaaris maaragtay laga xukumo, ayaa madaaris islaamiya waqaf loo suubinhayaa. waqafkaas yaa la rabaa in lagu maalgeliyo dacwada lagu wado qarnigan iyo qarniyo kaloo soo socdaba. walaalaha muslimiinta baaq iyo risaalo iyo waraaq iyo barwad u diraynaa. waqafkaas kuwa gudaha joogaan iyo kuwa dibadda joogaan iyo zakooyinkooda, zakawaadkooda iyo tabarucaadkooda iyo waqafkooda, waxay waqaf ka rabaan, waxay waalidkooda u waqfahayaan, naftooda u waqfahayaan, caruurtooda u waqfahayaan, awiyahooda u waqfahayaan, dhammaan inay meesha ayada ay ku soo bixiyaan baan ugu diraynaa. waqafka meesha lagu diriyo sidaah loo dirhaye umuurahana waa liiga dambaynhayaa. marka waa masalo tacaawuna. runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, maalin weyn weeyaan. sida waalidka uu xusay, waxaan halkan iskugu nimid inaan daah furno, xarig furno, dhagax dhigno waqafkaas laga shinqariyey ee mandaqatu ijaara. runtii arrintaasaan maanta culimmada iyo keyrkeed baa la iskugu yimid. xaflad aad iyo aad u weyn bay ahayd, aad loo soo agaasimay. ma haddaana ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala. ummadda intanoo makhluuq isku timid wax kale umayna imaanin. waxay u timid fariintaas walaalaha muslimiinta meel allaala meel ay joogaanba inay u faraan, ay u diraan dal iyo dibadba bad-an min Gaarisa County laga bilaabo. Gaarisa County laga bilaabo gobollada Mandera, Wajeer, Gaaris iyo khaarijkaba, dal iyo dibadba. waqafkaas allah hayna barakeeya. maanta la dhagax dhigaya in aan ka qayb qaadanno, in laga qayb qaato fariintaas. qof kasta oo damiir leh oo muslim ayay ku socotaa. ilaahay hayna barakeeyo. hadda nin walba wuxuu maanta meel dhigtay. maanta taariikhda islaamka waa 29 bishii muxaram ama zaka loo yaqaano 1447 oo waafaqsan 24 bishii 7 2025. waxaan meeshan iskugu imaanay mashruuc ku saabsan waqfigii loo dhisay madaarista islaamiga mandiqada ijaara. waxaa ku idil meeshan mujtamaca intuu ka koobnaa oo idil, rag iyo dumar, madax iyo shacab, culamaa uddiin, reer Gaaris oo idil baa iskugu imaadeen. ilaahay baana fadliga iskale subxaanahu wa tacaala na waafajiyey meesha inaan iskugu imaano. uma waxaa sabab u ahaa walaalkan embiga cabdi cali xaaji sheekhow oo meesha noogu isku keenay. sida culammada iga horraysayba ay sheegtay, fursadan ama nafaaskan ha laga faa'iidaysto, qof kasta oo muslima oo codka annaga uu gaarayo. mashruuca waa mashruuc loo dhan yahay. xaqiiqadiisa baad arkaysaa, culammadii oo dhan baa u idil. waa mashruuc diini ah, diinta ilaahay baa loogu gargaarayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi in tansurullaha yansurkum. haddaad ilaahay diintiisa u gargaartaan, ilaahay baa idiin gargaar. ilaahay baa mahad leh oo mahad oo dhan u sugnaatay, mahadna mudan. maantoo ay tahay taariikh 29 bisha muxaram ee sika loo yaqaano koowaad sanadka islaamku uu yahay 1447 ee waafaqsan 24 bisha 7 2025 oo maalin khamiise inuu na waafajiyey inaan daah furno waqaf loo sameeyay madaarista islaamka ee gobolka ijaara. taasoo ay dhammaan ka soo wada qayb galeen
culimada iyo madaxda uu horkacayo embiga maaragtay Ijara Cabdi Cali Sheekhow iyo madaxda kale maaragtay Mushumuwa Bishaar Abbas Ibrahim Abbas iyo dhammaan culimada Garissa County iyo dadweynaha rag iyo dumarba Allah sa mahad iska leh baaqan dirayna maxaa weeye qof kasta oo muslim ah oo codka anaga soo gaaro waqafkan oo la jeedadiisa maxaa weeye in diinta islaamka lagu wado laguna koryeelo adduunkana uu dhisnaani inta diin islaam ay baaqi tahay diin islaam diin la waayo adduunya ma jirayso wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin jiritaanka diinta islaamka ay jirto iyo adduunyadan la harsanhaya diinta islaamkaas la harsanhay la maalhay adduunya maaragtay baa laga faa'iideysani marka waxaan leenahay oo rajaynaynaa waqafka maanta aan daahfurnay ilaa aakhira qiyaamo inuu socdo annagana dhawaan waan dhiman doonaa nin kasta markaa shilin ku soo darso sadaqa jaariyaha ku noqoto cilmigaas meesha laga baranayna cilmi adiga maaragtay faafintiisa sabab u tahay ha noqoto marka walaalaha muslimiinta rag iyo dumarba uu codkan soo gaaro isku day diinta islaamka koryeelideeda iyo maaragtay u istaageeda inaad wax ku darsato si aad ilaahay u tiro bariga ku weydiinayaan maanta waxaan iskugu imaanay halkan waqaf oo la samaynayo madaarisinka Ijara marka muslimiinta adduunka meel ay joogaanba waxaan baaq u diraynaa iyo codsi inay arrintan ka qayb qaataan qaasatan reer Garis khasuusan waliba reer Ijara adduunka meel kasta ka joogaan waxaan rabnaa arrintan inay qayb weyn ka qaataan haddii tii ku janna gal lehdeen tan waaye oo dambigana iska dhaqi lehdeen marka nin walba intuu qir karo ha ka qayb qaato wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed iskale Allah subhanahu wa ta'ala isku kan keenay anagoo muslimiina meeshan oo walaal ah maanta maxaan u fadhinaa inaan daahfurno waqaf Ijara waqaf aan rabno inaan diinta aan u garab istaagno ayaa maanta maaragtay yaan ku daahfurayna oo maalinta aad tahay taariikh 24 bisha 7 2025 arrintan maxaa ka soo shaqeeyeen culimada iyo madaxda ani iyo Meeshimo Bishaar iyo madaxda kale ayaa ka soo shaqeeyeen dad walaalahayna oo sheeqasha aad aan xushmeynana maanta aad baan noo xushmeeyay ilaahay xushmeeyo garab baan siiyeen maxaan baaqi u dirhaynaa dadweynaha muslimiinta dadweynaha reer Garis dadweynaha waqooyi bare dalkii iyo dibadda inaa maaragtay waxaan ka codsanayna inaa nagu garab istaagtiin arrintan muhiimadda oo Ijara waqaf ah maxaana arrintan ku budget gareynay lacag 300 oo milyan baa ku budget gareynay 300 kulli fundraising markuu aan lahaan doonaa insha Allah mar labaad baan lahaan doonaa mar saddexaad baan lahaan doonaa waa arrin aan maaragtay ku bangeynay inaan diinta reer Ijara madrasinta reer Ijara madrasinta ku yaalaan Ijara constituency inaan maaragtay wax ugu qabanno gurigaas u quraxsan ayaan ku qiimeynay wax u dhigmo lacag 300 oo milyan maxaana rajaynaynaa insha Allah in la heli doono muslimiinta ha noo soo duceeyaan dadka walaalaha ha noo soo duceeyaan dadka reer Ijara qaasatan dal iyo dibadda aad joogtiin waa maaragtay waqtiga inaad ka faa'iideysteen waa waqtigan dadka walaalahayna oo reer Garis iyo dadka ku nool Soomaalida weyn muslimiinta kulli garab baan iga baahannahay maxaana aaminsanahay reer Ijara hadaan nahnay inaan jeceshiin oo waqti kasta oo na garab istaagantiin yaan jecelnahay gabdhahayna muslimiinta dumarka reer Ijara dumarka reer Garis dadka ku nool dumarka dhan ku nool codsi qaali ayaa maartay igu codsani aniga embigiina inaa maaragtay arrintan garab nagu tihiin garab istaagtiin account numberka iyo paybill-ka kulli meesha ayaa ku qoran tahay maxaan leenahay dadka muslimiinta waa nii baahannahay waqti kasta nii baahannahay baahida ilaahay baa bixin karaa laakiin arrintan waa arrin diini ah inaan garab istaagtin reer Ijara ayaa niga codsan lahaynaa muddo 3 bilood gudaheeda insha Allah ya fundraising-ka oo aan ka dhigaynaa main fundraising-ka u hore ilaahay doona gaarsiiyo meesha noqon doonto qofka guest of honor noqon doono waqtigi insha Allah committee-da maaragtay
u xil saaran culummada iyo professionalka iyo xafiiska MB-ga yaa maaragtay soo sheegi doonaa waana mahadsantihiin